أكشي كنا ضاب كلاباد يقوين هندية جلاء أفلام تيسل حيسين جري دمات قرن كيس على تمناد يوران دي قرن لواتنات جلاءً وأكثر أفلام وبين كسوم مقضي حدا واحد لو تاجي دونا حق حقيقيين وجاره بس أنت نقول قلي مقال كيجا وحن كعصنا إن جنال كسب بيرتو مقال كديات كاش لكن نصر سي شير جري أو لو ذاك سحبت هذا سونا دبعد صاحب يال أكشي كنا سمال القروح يقول رنويل كمستان وأفرتني سجال جد لشيء سنة ديكون سجال بغلط دبعتني شنتي وحدا لجلاجي وينا بين تكنا أمام مستان وحطوا تقانبا جلاجان وحال دش أكثر لغم قعاو راهول كنا markaan eegno aktarkan abiisi iyo hooyadiis bixi ahayn dad magac ku leh gudaha India inkastoo labaduba ay geeriyoodeen aktarkan filimkiisii ugu horeeyay waxa lagu magacaabaa Himalaya Budra wuxuuna soo baxay sanadii 1997 jilaagan akshay kana wuxuu ka soo muuqday aflaam waaweyn kuwaas oo Soomaalidu qaar aad u xiiseeyaan markaan eegno aflaamtu ka soo muuqday gulaha waaweyn gaaran waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Border kaas oo soo baxay sanadii 1997 Diljeh tahay oo soo baxay sanadii 2001 taal oo sanadii 1999 soo baxay Hungama oo 2002 soo baxay iyo sidoo kale filimka caanka ah Gandhi My Father ka oo soo baxay sanadii 2007 markaan eegno aktarkan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqada horeysa jilaagan filimkiisii ugu horeeyay Himalaya Budra waxa ku qalqaaliyay abiis sidoo kale wuxuu rabay abiis inuu u dhiibo filim kale oo asiga uu soo saaray ka yahay laakiin nasiib xumo filimkan waa uu ka guul dareystay markii uu ka guul dareystay feenudkana wuxuu go'aan ku gaaray inuu iska dhaafo filimka uu dhiibi rabo laakiin nasiib wanaag qof uu nasiib saacid raba cidna ma ka celin kartay wuxuu nasiib u yeeshay in uu jiro filimkii weynaa ee Border kaas oo soo baxay sanadii 1997 waana filimkii ugu weynaa ee sanadkaasi soo baxay nasiib wanaag aktarkan xiligaas wixii ka dambeeyay wuxuu saldhigtay Bollywoodka wuxuuna helay projectyo cusub kaas oo markii dambe magaciisa uu kor ugu qaaday saaxiibayaal xaqiiqada labaad ee jilaagan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay jilaagani waxa karaash ku ahayd ama aad u xiiseyn jirtay atrishada caanka ah ee Kareena Kapoor waqtigeedii teenagerka ama yacni waqtigii qaangaarka ahayd aad ay u xiiseyn jirtay xaqiiqada ugu dambaysa aktarkan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan jilaagan akshay kana waxa uu diiday nolosha guurka mar uu hadda ka horeysa uu bixinayay waxa uu ku sheegay inuu san rabin inuu guursado wuxuu yiri aniga horey xiriir waan u sameeyay laakiin anigu ma doonayo inaan guursado waxaan doonayaa oo kaliya nolosha kalinimada ugu jilaagani waa jilaaga saaxiibada ugu badan ku leh Bollywoodka wuxuuna saaxiibo la yahay jilaayaal ay kamid yihiin Anil Kapoor Arshad Warzi waa Soomaalidu qaar u yaqaanaan Hindustani Kareena Kapoor Priyanka Chopra Sanjeev Saif Ali Khan sidoo kale atrishada caanka ah Madhuri Dixit aktarkan akshay kana wali waa jilaag ka xamaasha Bollywoodka filimkiisii ugu dambeeyay ka soo muuqdana waa filimka caanka ah Diryasham ama taxanaha Diryasham qaybtiisa labaad oo ajiye hogaamiyaha ka ahaa hadaba intaas ayaan kusoo gabagabay saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay jilaaga caanka ah akshay kana fadlan hadii aad ka hesho muuqaalka laag inoo saar si share garay oo la wadaaga asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena